السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan asxaabtahay meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada casharadana imtixaanaha. Casharkan waxaan ku bari doonaa qaabka loo hidgareeyo ama loo qariyo WhatsApp profile. Waxaad tagaysaa qaybta setting-ka, ka dooraysaa account, ka dooraysaa privacy, ka dooraysaa profile photo. Everyone ayuu adiga ku saaran yahay hadda. Profile photo markaad tagtid adiga wuxuu ku saaran yahay everyone. Profile photo taabanaysaa waxaa ka dhigaysaa nobody, qof yuusan arkin. Sidaas ayaad ku qarin kartaa profile photo ku saaran WhatsApp-ka. Saxaabtana waxaan ka codsanayaa inay booqdaan YouTube-ka channel-keena Hayes Groups si ay u helaan casharo fara badan. Channel-kaas booqda. waa YouTube-kan gelinaa. markaa YouTube-ka gashid waxaad qoraysaa Hayes Groups. hadda waa ku jiraa hadda home-kii waa kasaha video-giisaan tago. cashirka ugu dambeeyay waa ka ilaali, iska ilaali dadka waxyaabaha anshaxa daran soo dhigaya timeline-kaaga waa qaybta Facebook-ga. cashirka kale ka horreeya waxa waa ka ilaali nalka computer-ka indhahaaga. waa qaab fudud oo computer-kaada adoo isticmaalaya nalkan uu ka gaabsan yahay computer-ka isticmaalaysid. kan kale ku xig waa sidee loo ogaadaa inta qof ay isticmaalaysa wifi-gaada, sidee loo sameeyaa ID card, sidee codka soo dhicitaanka u xiraa anigoo taaban telefonka, qaab fudud oo telefonkeyga loogu xiri karo anigoo aan taaban telefonkeyga, sideen u qabtaa mobilkeyga soo dhacaya aniga oon taaban. waa answer, wave to answer ama hawo uga jawaab. cashirkeena inta inoo yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.